shirkadaha ku caanbaxay jilitaanka filimaanta ee Bollywood iyo Hollywood ayaa isticmaala agabyadan u isticmaalaan inay ku jiraan filimaanta. qoryahan ay loo yaqaan sniperka iyo pistoolooyinka Belgianka iyo Amaanlayda ayaa waxay u isticmaalaan ayagoo feega inay ku isticmaalaan filimka, balse dadka qaar ayaa u isticmaala si wada qaldan. dadkaas oo isticmaala in ay xilliyada mugdiga ama habeenkii oo kale ay ku dhacaan dadka ay kaga qaataan waxyaalaha ayagu muhiim ah sida taleefanada iyo lacagaha ay markaa jeebka ugu jira. Dhammaan waxaa looga digayaa dhalinyarada inay isticmaalaan qorigan ku isticmaalaan bulsho ayagoo isticmaalaya si qaldan. haddaba waa degniin u isticmaal kaliya inaad ku jasho filim ama prank ku samayso. dadyooga isticmaala baraha bulshada sida YouTube, Facebook, TikTok iyo kuwa kaleba qaarkoodna ka sameeya lacago ayaa waxaa loo ogol yahay inay qorigaani ka soo gataan dukaamaha lagu gado qoryaha feega ama lagu jiro filimaanta. waxaa kaloo digniin nagu ah qorigan oo kale inaad u isticmaalin ama aad ku isticmaalin dadka qaba xanuunka sida sokorta, dhiigkarka iyo wadna xanuunka, waayo waxaa dhacda dadkaasi in hadal xun markii lagu la hadlo inay wadnaha istaagaan ama ay joogka ka dhacdo. ka ilaali dadka qaba waswaaska iyo xanuunada qaar ee cilmi nafsiga iyo shakiga badan, waayo waxaa sababi karta inay u dhintaan ama ay u galaan marxalad adag.